Assalaamu calaykum. Waa Mubaarak Maxamuud Saleebaan iyo channelkeeni Tayatoon Media. Fadlan haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar sidoo kalena gambaleelka yar furo si aad ula socoto muuqaalada dambe aanu soo gelin doono annagana ay noogu noqoto dhiirigelin. Maanta waxaanu ka hadlaynaa sababaha ka qayb qaata inay gabadha uur yeelato ama ay iska ilaaliso. Run ahaantii uur qaadistu waxay ku xidhan tahay awoodda Rabbi subxaanahu wa tacaala, isagaana garanaya xilliga qofku uur qaadayo. Haddaba sida cilmi baadhiso kala duwan lagu ogaaday, waqtiga ugu habboon ee uur la qaadi karaa waa xilliga ugxansiduhu soo daayo ukun, taasoo diyaar u ah in la bacrimiyo. Ugxansiduhu wuxuu ku yaallaa ilmagaleenka, oo waa kan aad halkan ka arkaysaan sawirka ee aanu calaamadda idiin saaray. Haddaba ugxansiduhu wuxuu ku xidhan yahay tuubada tan. Tuubadan waxaa la yidhahdaa fallopian tube. Marka la soo daayo markaa ukunta waxay soo martaa fallopian tube-kan aad arkaysaan. Kadibna waqtigaa waxay diyaar u tahay bacrimin, waxay sugtaaba shahwadii ninka. Haddaba xillima ayay dhacdaa in ugxantaa la soo daayo, ayaynu doonaynaa inaynu maanta isla fahanno. Haddaba si aynu taa u fahanno, wareegga caadada ayaa ina siin karaa tilmaamo ku saabsan goorta jidhkaagu uu diyaar u yahay inuu uur qaado lana soo daynayo ukuntaas. Tallaabada ugu horraysaana waa inaad barato maalmaha bacriminta ee aad uur qaadi karto. Haddaba si aynu taas u fahanno, waa inaynu barannaa wareegga caadada dumarka iyo sida loo xisaabinayo. Waa maxay wareegga caadadu? Caadadu waa dhiig bilo ah oo ka soo baxa xubinta taranka ee dumarka, wuxuuna gabadha ku bilowdaa xilliga ay qaan gaadho, wuxuuna haweenka ka yimaadaa bishiiba hal mar. Haddaba dhiigga caadada waxa la waayi karaa 3 xaaladood. 1. Inaad uur leedahay. 2. In ilmo ku jaqayo. 3. iyo inaad noqotay dhalmadays. Haddaba dhererka caadada dumarku way ku kala duwanaan karaan, laakiinse caadi ahaan waxaynu u tixgelinaynaa oo normal ahaan ay noqonaysaa inta u dhaxaysa 21 ilaa 35 maalmood. Laakiinse sida caadiga ah dumarka intooda badan waa 28 maalmood. laakiinse waxaynu u aqoonsanaynaa caadi baynu nidhi 22 ilaa 35 maalmood inta u dhaxaysa. Taasi waxay ka dhigan tahay inaad haysato qiyaastii 6 maalmood bil kasta oo aad uur qaadi karto. Waana maalinta ugxansidahaagu soo daayo ukun, waxaana loo yaqaanaa maalinta ovulation. Xilliga la soo daynayo ukunta waxay ku beegan tahay kala badhka wareegga caadada iyo 5 maalmood ee ka horraysa. Taasi waxay ka dhigan tahay inaad haysato qiyaastii 6 maalmood bil kasta oo aad uur qaadi karto. Tusaale ahaan, haddii wareegga caadada haween uu yahay 22 maalmood, soo daynta ugxantu waxay ku aadaysaa maalinta 12aad iyo 5 maalin ee ka horraysa. Haddaba si loo ogaado waqtiga saxda ah ee ukunta la soo daynayo, waxaad u baahan doontaa inaad meel ku qorato maalinta ugu horraysa ee dhiigga caadadu kaa yimaado. Kadibna maalinta markii laga xisaabiyo waxay ku beegan tahay kala badhka wareegga caadada iyo 5 maalmood ee ka horraysa. Haddaba waa maxay sababtu? Sababtoo ah uur lama qaadi karo haddaan marka hore horta la soo dayn ukuntan. Ukuntana waxaa la soo daayaa waqti cayiman. Waqtigaa cayiman marka la soo daayo oo kala badhka wareegga caadada ah, waxay noolaan kartaa oo sii joogi kartaa 24 saac. Wixii ka dambeeya way baaba'aysaa. Shahwadda ragguna waxay noolaataa 5 maalmood oo ay sugi kartaa. Waa sababta marka lagu leeyahay kala badhka wareegga caadada iyo 5 maalmood ee ka horraysa. Haddaba sidee bacrimintu u dhacdaa? Sawirka halkan idinka muuqdaad arkaysaan, qaybtaas halkaa inoogu muuqata waa calooshii. Calooshuna afkeedan dhammaadkeeda waxa ku sii xiga waa ilmagaleenkii. Ilmagaleenku shaybkiisa sidaad u jeedaan wuxuu leeyahay 2 gacan. Labadaa gacana yaryarna waxaa afka kaga sii xidhan ugxansidihii. Ugxansidahaasina waa ka ukunta soo daaya si loo bacrimiyo. Bacrimintu waxay ku dhacdaa hab la yidhaahdo ovulation. waynu marka hore dhacaa. Ovulationkuna waa in ukun qaangaadh ah laga soo daayo ugxansidaha. Ukuntaasi kabacdi waxay ku soo dhaadhacaysaa fallopian tube-kan aad aragto. Kadibna fallopian tube-ka ama tuubada yar inta ay dhex marayso waa inay la kulantaa isbamkii si bacrimini u dhacdo. Haddaba haddii waqtigaa ay bacrimini dhacdo, ilmaa halkaa ka abuurmaya oo bacrimintaa samaysantay waxay u dhaqaaqaysaa dhinaca makaanka oo loo sii diyaariyey, halkaasuna ilmihii ku beermaya. Haddaba haddii bacrimintaasi dhici weydo miya? Makaankii la sii diyaariyey, gidaaradiisii la sii dhisay, wuu soo dumayaa kabacdina waxaas waxaynu u naqaano caadada dhiiggii baa imanaya. Waa maalinta 28aad oo uur maad yeelan bay ka dhigan tahay.
saykalkan aad arkaysaanna wuxuu ka dhigan yahay 28kii wareegga caadada. marka intaa casaanku saaran yahay 1 2 3 4 5 waa intii dhiiggu socday. haddaba waxaad dhaafaysaa 6 7 8 9 10. intan greenka ah waa xilliga aad uurka qaadi karto. minis maalinta la soo daynaya hadday ku beegan tahay maalinta 14aad, hal maalin oo ka dambaysa iyo 4 maalin oo ka horreeya waxay ka dhigan tahay intaa waa xilliga uurka la qaadi karo. xilliga hadday dhaafto uur ma qaadi kartid. markay halkaa marayso 28kana dhiiggii kale aad helaysaa. haddaad wakhtigaa weydo dhiiggii kale waxay ka dhigan tahay uur baad qaaday. haddaba tusaalooyin yarar baan tusayaa qaabka aad ku soo saari karto maalinta saxda ah ee evolutionku uu dhici karo. waxyaabaha ugu fiicanna waxaa ka mid ah inaad celceliska dhiiggaaga haddaad rabto inaad ogaato 3 bilood ee ugu dambeeyey waa inaad la socotaa ama aad qortaa wareegga caadadaada tiradiisu intuu leegyahay. haddaba Sahra waxay qoratay 3 wareeg ee ugu dambeeyey ee caadada iyadoo tirinaysa wakhtiga laga bilaabo maalinta koowaad ee caadada. 3 bilood ayayna xisaabisay. haddaba 3 bilood waxay u soo kala baxeen. bishii koowaad wuxuu noqday 28 maalmood, bishii labaadna 32 maalmood, bishii saddexaadna 27 maalmood. haddaba si aad u soo saarto celceliskaaga, 3dan tiro ee kuu soo baxay wanaad sugaysaa 28 loo geeyey 32 loo geeyey 27. intaa markaad sugayso waxaa kuu soo baxaya 87. 87daa kuu soo baxay isla 3dan u qaybi, waxaa kuu soo baxaya 29. celceliskii waxaa kuu soo baxay 29. markaa waxay ka dhigan tahay 29 markaad kala badho maalinta 14aad 3 maalmood oo ka horreeya iyo 2 maalmood oo ka dambeeya. 6daa casho waxaad fursad u haysataa inaad uur qaadi karto. tusaale kale, haddii celceliska wareegga caadadu uu noqdo 35 maalmood waxay ka dhigan tahay ukuntaa waxaa la soo daynayaa maalinta 21aad. bacramintuna waxay dhici kartaa maalinta 21aad iyo 5 maalmood oo ka horreeya bay ka dhiganta. tusaale kale, haddii aad leedahay wareeg gaaban oo 21 maalmood ah waxay ka dhigan tahay ukuntaa waxa la soo daynayaa maalinta 7aad. bacramintuna waxay dhici kartaa maalinta 7aad iyo 4 maalmood oo ka horreeya iyo maalin ka dambaysa. habka labaad ee lagu ogaan karaana waxa weeye adoo la socda isbeddelada jidhkaaga. oo maxaa ka mid ah? waxaad fiirin kartaa isbeddel ku yimaada xubintaada taranka. tusaale ahaan, makaanka afkiisu wuxuu samaynayaa xab badan, waxaadna ka dareemi kartaa xubinta taranka xab jilicsan oo sibibixa oo u eg xabka beedka oo kale. marxaladani badanaa waxay socotaa 3 ilaa 4 maalmood, taasoo ah waa wakhtiga la soo daynayo ayay hordhac u tahay ukunta, waayo waa calaamad muujinaysa in ugxantu soo dhowaanayso. waana wakhtiga ugu fiican ee galmo la sameeyo maadaama shahwadu si sahal ah ugu safri karto xabkan. haddaba si loo hubiyo xabka, dhowr nooc baad adeegsan kartaa. kiliinis waad adeegsan kartaa. markaa haddii aad aragto inuu isjiidanayo xab yaroo jilicsan oo isjiidanayo oo dhegdheg leh inuu yahay, minis waxay ka dhigan tahay waxaa soo dhowaaday xilligii ukunta la soo daynayey. jidhkaaguna wuxuu diyaar u yahay wakhtigaa inuu uur qaadi karo. habka labaadna waa adoo heerkulka jidhkaaga la socda. oo saad ula soconaysaa waa inaad subax walba horta heerkulkaaga cabbirtaa. sariirta markaad saa uga soo kacdo oo aanad dibadba u bixin waa inaad cabbirtaa, waayo haddaad dibadda u baxdo isbeddel baa ku iman kara. maalinta haddaba la soo dayn doono waxaad dareemi doontaa in heerkulkaagii uu kacay adoo isticmaalaya basal body thermometer oo kan sawirka idinka muuqda ah. halkaa haynagu joogto. fadlan haddaad muuqaalka ka heshay like saar si uu dad badan u gaadho. sidoo kalena haddaad channelka ku cusub tahay subscribe saar. wasalaamu calaykum.